xasan maxamuud hadalka ka dhacay horta wuxuu ahaa mid aan laga fiirsan hadalka aan laga fiirsanina waxyaabaha uu leeyahay dhibaatooyinka uu leeyahay tan oo kala ka mid ah waxaa kaloo laga baran karaa in siyaasiyiinta Soomaalida dhaqan siyaasadeedka ay isticmaalaan oo ah kaliya in ay isticmaalaan erayo kicin iyo koob-kacsi ah oo aanan ahayn wax ku salaysan ama u turaya dalka iyo dadka Soomaaliyeed ciidamada iyo waxyaabaha danta guud ah oo kabitaalka wadanka leeyahay wax siyaasadeyn karo ama qof waxa weeye lagu ataagi karo si shakhsi gaar loogu leexin karo ma aha waa hanti qaran dalku leeyahay loo baahan yahay maadaama aan nahay dad waxa weeye 30 sano ka badan burbursanaa u baahana inaan noqono waxa weeye dad ciidan ahaan dhisan si amnigooda ay gacanta ugu dhigaan xasan maxamuud hadda anu garan kari maayo sabab oo hadda waxa weeye dhalinyaradaas oo sida ugu been abuurtay waalidiintii waxa weeye ku abuuray nacaymka iyo cadaawadda waji uu siiyo qaab waji uu siiyo oo de uga hortag hadda wuxuu ku hadlo xulay anu garan maayo waana waxyaabaha u baahan boqolkiiba boqol siyaasiyiinta Soomaalida inay ilaaliyaan dareenka shacabka kan ciidamada iyo guud ahaan wax kastoo wadanka uu leeyahay si gaar ah wadanka uu leeyahay ee shakhsi iyo aan lagu maamul gaar midna aan lagu leexin karin taas waa qodob kale waxa weeye Eritrea waa wadan Afrikaan ah kamid ah wadamada ugu tababarka wanaagsan Afrika ciidamadan waxa la geyn jiray Uganda iyo meelo kala duwan haddii la doono qallaaso way ka dhici kareen meelahaas wali cid maartay qaabkaas oo la macaamishay ama sida ciidamada u niyajibisay moralkooda lama hayo wadamadaas waxa lagu soo tababari jiray Eritrea ka mid tahay in horsi gaar Eritrea loo birtilmaameysado oo dadka qaar ama siyaasiyiinta qaar ay yiraahdeen Eritrea maxaa loo geeyay taasi waxa weeye waa ihaana gaar ah oo dalkaas lagu hayo dal Afrikaan ay deris aan nahay alaqaadkeenu uu wanaagsan yahay ciidamada waxa weeye inoo tababaro wax mushkil ah oo ku jaban horta anigu ma ba arkaba de marka madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed waxa wanaagsan markastaaba duxil hayo haddaan xilhayn saguli waa ka duunaa dadkii hore ee hadlay qeylqeylinay معارضك أو كدونا وحكدونا وحان دلك سوه جامعة 4 سنة عقبت كيس أما هلا دليل أما هلا جعلسته طبعا كل واحد أرجنا يهران وأرجنا هذا وصابت كينس أنا حساب بدن لوقا من حس الشيء إن هذا عمل السوداوي أما الله صعبته أما وحسبه كيني يالي هذا الشري وحوي ومقطعي وقوينتها وحقبتي يحسمي ولا سعودي بس ده خير كلام ما قوسه مربوع إنه وحكوا احترامنا أولي الأمر عن ودين احترام جارسيس أولي الأمر إلا عاينة ما هو نفسنا بريه ودن بي waxay moodaan in xagga rakaabka uu ka xumaa oo ay soo baxeen dad iska qowliisata oo la oran kara qowliisata weeyo si gaar ah dadkii u beegsanay marka waxaan jeclaan lahaa madaxweynaha waxyaabaha noocaas oo kala ah ismacadiisa dilaya waxa weeye asaga aan u wanaagsanayn inuu iska ilaaliyo oo arrintaas si hoos u baaro bulshadana ay u sinaato dadka qaar hadda waxay aaminsan yihiin in madaxweyne muduloodu yahay laakiin uu oran maayo oo madaxweyne qaran Soomaaliyeed baa u aqaana waana sax waa uu yahay laakiin waa in uu mansabka uu ku fadhiyo uu ka soo dhalaalo oo uu ka muuqdo nimankii xasan ku ciidoobay waxa weeye soo noolaaday maartay xawaalaha laga soo qofay 5 kun oo dhimatay waa soo noolaaday marka si celiya nimanka yana beenta iyo burbaanka la ku sifurin odaygeynaba maanta wuxuu ku hadlay wuxuu ku jawaabo garan la waxa maqlay isagoo ciidamada waa la qarinayay waa run waa la qarinayay dadka laga qarinayay cid walba laga qarinayay waxa weeye cadow ma ogolayn jawaasiista xalna fadhida ma ogolayn isaga midda laga qarinayay waxa weeye inuu basaasay rabay Kenya iyo maartay nimanka xalna fadhiya horta madaxweynihii hore sagaalaad maxamed cabdullaahi farmaajo siyaasadii u jeexay iyo wadadii u jeexay xasan sheekh maxamuud uu ku khasban yahay ku dulisay inuu wadadii raaco sababtu waxa weeye waxa la yiraahdo mutual interest baa wadamadu wadaag sida wadan dhalay ma jiro Kenya nama dhalin Ethiopia nama dhalin Eritrea nama dhalin Turkey nama dhalin laakiin waxa la yiraahdo
saaxiibtinimo daneed baa wadamada isu dhexin eritrea nama dhalin xasan sheekh maxamuud horta madaxweynaha soomaaliya oo tobnaad xasan sheekh maxamuud waa asaga hadda yacni qofkii mucaaradsan oo ama fikirkiisa hore ama kiisa hadda ku mucaaradsan iyo qofka ku taageersan qof kastana istiqraarkiisu leeyahy laakiin aqlabiyadda shacabka xabiibalmalaayiin ciiddii shalay ahayd maantay ahayd xalay fiidkii aduu maqribadii ka hor meelahaas madaxtooyada fila soomaaliya waxay soo dhigtay taaniyad maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynihii sagaalaadna wuxuu soo dhigay bejkiisa bersonaalka taaniyad 100,000 oo comment 100,000 oo like iyo love ah oo maraya hadda kii filada soomaaliya oo madaxweynaha hadda xilka hayana 8,000 waa dhaafi waaye cali yaraa ka sarreeya cali ku yaraa 40,000 maraya cali يعني taageerada shacabka oo majority ah siyaasad danta Soomaaliyeed ku dhisan lama inkiri karo xasan sheekh maxamuudna uu ku khasban yahay siyaasadii maxamed cabdullaahi farmaajo wadada uu jeexay waa aniga fikirkayga bersonaalka inuu maro sababtoo ah siyaasad aagaysi ah dowladii hore oo nabadii nolol ma is isticmaaleen ee siyaasad danta Soomaaliyeed Eritrea waxaa noo geeyay dan sababtoo ay tahay Eritrea Ethiopia aan daris la nahay xuduud la leedahay wadan ay isku haysan jireen oo deegaan isku haysan jireen wala maqlayaa Soomaa si fiican geopolitics ka ama regional ha noqdo ama global ha noqdo maalin kasta wuu isbedelaa every day wuu isbedelaa laakiin dad waxaa jira aan ku aware ahayn ama aan ku baraarugsanayn Djibouti halga sharqimiyay Djibouti waa wadan walaalaheena deriskeena ah Soomaali ah laakiin aniga interestiga hadaan Djibouti ka dhex arki waayo oo aan ka dhex arko Eritrea kuma khasbana Djibouti inaan u raxo oo Ismaaciil Cumar Geelo oo dimuqraadiyad iyo ka sheekeeya markuu uu meelaha joogo shirarka igadka iyo waxa uu joogo weligiisna wadankiisa dimuqraadiyad aysan ka dhicin oo haddii hal qof oo ka ra'yi duwan haddii Djibouti la arko oo madaxa inta la xarig looga xiro iyagoo gebigooduba 5 milyan mise 4 milyan badda lagu tuuraa waa interestiga wadamada siyaasaduna faa'iido ka gaari maysa haddaysan interest lahayn dowladdii hore ciidanka Eritrea ay geysay oo ay kusoo tababartay waa la boonbooniyey waa la siyaasadeeyey dadka mudaharaadaya oo muqdisho ka mudaharaadaya waayo ay uga mudaharaadi waayeen Garoowe Gaalkacyo Boosaaso Hargeysa haddii alla ku Kismaayo waayo ay muqdisho kaliya uga mudaharaad oo dadkaas muqdisho loogu arkaa wadada Makal Mukarrama iyo inta iyagoo dhoodhoob wax la sameeyey aniga my point of view wax la sameeyey oo maalintii la rabana kaarka lagu shubto maalintii la rabtana la dhaho fariista niman siyaasiyiin ah aqoon-yahana oo dowladdan ka horeysay tii kale ka horeysay xasan sheekh maxamuud waqtigiisii ahaa niman ciidamada iyo sirdoonka iyo xilka soo qabtay sheekooyin been ah oo aan laba caruur isweydiin ka sheekayn jiray maalinta xasan sheekh maxamuud la doortayna fikirkoodii way bedeleen waxay dhaheen ciidamada Eritrea joogaan weli sheekooyinkii iyo warbixinadii la lahaa Ethiopia dagaal ka qayb galeen xaqiiqadooda lama hayo hadda waa nimankaas hadda maanta Twitter space-kooda ama Facebook post-kooda gashay 100 report oo ayaga ay meesha soo dhigeen arkaysa horta waxaa la wax la caysho beena u gaaban u oral gaaban maanta caawa xasan sheekh maxamuud Eritrea ma joogo waa siyaasad hore loo jaxay Soomaaliya ciidankana waa la soo celinayaa kharash iyo wax lacag hadii ay jirtana qadara bixinaysa qadara balqaaratay miiska saaran waxyaalaha lagu wareejiyay kamid ah xasan sheekh maxamuud miiska saaran oo qadara lacagta bixinaysa haddaan siyaasadeeda la xumaynti oo wax la badan qaaday ciidankan 5,000 ciidan marka ay tababar aadaan waa jabaan waa dhintaan waa xanuunsanaa kuwa hadda Turkiga u tagay toddobaadkii hore Sparta jooga
dadaa ka dhintay oo meesha qabuurahoodii u tegay oo meesha lagu aasay maxaa u malaynaysaa waddan afrikaano tababarkiisu ka adagaya midda kale Ethiopia how it's possible Ethiopia oo 100 milyan inay 3,000 ama 5,000 ama 4,000 oo Soomaali u baahan Ethiopia one day hal district ama hal warada waxa Ethiopia looga yaqaan one day laga qori karaa 5,000 iyo 100,000 iyo 10,000 marka siyaasiyiin siyaasadda ka muufaysta beentooda way soo afjarmatay wayna soo afjarmaysa marka waxaan ka rabnaa tiimkan hadda mujdiid oo filada fadhiya sidii uga faa'iideysan lahaayeen ciidankan waa iska wajigabax wey kuwii UN-ka oo ankee oo mataqaanaa haddii alla ku roon yahay buunbuuninayay hadda waxay ku hayaan warbixin laga helay source ama yani information source-kooda uu reliable ahaa ama lagu kalsoon yahay ma jirto waxaa la weydiiyey habeen dhaweyta waxaa la weydiiyey Soomaalida Minneapolis joogta Minnesota mise Minneapolis toddobaadkii xorriyadda ay weydiiyeen Andrew Lorry oo ambassador-ka hadda wuxuu yiri waa la weydiiyey toosa la weydiiyey waa heli kartaa YouTube ku jirta su'aal la weydiinay wuxuu yiri annaga xaqiiqo kama hayno wax xaqiiqo ah oo rasmi ah in ciidamada Eritrea lagu tababaray ay ka dagaalameen meesha la yiraahdo Ethiopia ama Tigray region ay ka dagaalameen xaqiiqo lama hayo warkaasuna waa been war jiray cakaaro iman ciidanka waa joogaan aniga laba hadlin laakiin dad aan qaraabanahay dhalinyaro aan qaraabanahay ku jireen oo familkooda eelkooda wareeg waa nala soo hadlaano meelba ma joogaan magaalaba ma joogaan meel oo Ethiopia xuduudeeda dhanka ma soo xigto meel oo dhanka koonfurta Eritrea joogaan oo intaasoo kilomitir looga soconayo magaalada xasan iyo tiimkiisa waa tageen aw Eritrea joogaan bari ama baradamana ciidamada xeradooda ay tagayaan kaamiradana waa soo qabanaysaa ciidamada ayagana warbixin ay dhiibayaan qarashka iyo lacagta lagu soo bixin lahaa iyo tii Eritrea la siin lahaa waxa oo dhan miiska qadara mashruucan bixinaysa oo fangareynaysa laakiin marka waxaan u baahanahay xasan waa asagii oo Turkiga ciidamada markuu la hadlayay yiraahday wadanka amnigiisa waan sugaynaa dadkan hawdka duurka wareego oo waa la dagaalamayna waxa ABC aan kula dagaalamayna bal yaa arkay istiraatiijiyad dagaal oo ciidanka looga sheekay isku soo duuduub waxaan ku soo gabagabeynayaa saaxiibayaa siyaasiga Soomaaliga qabdiyad iyo wadaniyad male wax yar ma ahan oo maxaa Cabdullaahi Farmaajo kala kowdi laakiin shacabka Soomaaliyeed hadda dhigihiisa waa firjiqayn oo waa alam u taagan waana iska cadahay taageerada shacabka wax gacmo lagu dadi kara ma hadal Fahad Yaasin lahaa baa igu soo dhacay oo ahaa waxa la weydiiyay maxaad meediyaha moodka dhuumataa marka hadashid maxaa dhacay soo wuxuu ku jawaabay meediyahan aqaana nin meediyaha yaqaana kuma soo degdego marka maanta taa haysto odaygii maalba ka qaylin jiray Muqdisho Xasan Sheekh ahaa meediyaha ciyaar maaha qof xitaa la gari hore wadanka xil ugu soo qaban wuxuu doono ku hadlay qof dhan oo madaxweyne wadanka u soo ahaa waqti inuu habeen iyo maalin waxaas ku soo taagnaado wallahi anaaba la yaabay maanta waxa isleeyahay Soomaali ma qofkan hadda sheeganaysa leedahay madaxweyne nooye Allaha noo hagaajiyo haduu hagaagayo hadii kalena Ilaahay hana dhaafiyo ta kale anu markaan u fiirsaday ciidankan waxaan u maleynayaa in laga qoostay yani ciidankan wiilka hadda hadlay wuxuu yiri wiil aan adeer wahayba ku jira inkasta connection-kooda aad u xun yihiin oo wax loo baahan connection aysan badan oo wax loogu talagalay dawladnimadu waxa kamid ah in wadankaagu leeyahay sirtiisuna ay adag tahay in la helo sir wadan aan bila sir lahayn horta wadan horumaray ma noqonayaba hadeer u fiirsada ninkan uu sirdoonkan haysta Turkiga meel uu ku nool yahay iyo meel uu jaani cirib dhigo lama yaqaano waqaabku u dhaqma Fahad Yaasin sirdoomada waa in ay yani ay waa in aysan kaliya shaqadooda ay wax kasta iyo wadankooda ka horumariyaan danta wadankooda marka anigu hadda waxaas leeyahay dhalinyaradan hadeer si kasta waa isku dayay in la carqaladeeyo waa u noqon weyda dadkani
ilan way jeclaan lahayn maanta inay dadkaa dhintaan 5,000 oo ciidan oo meesha ku jirta aad bay ugu farxi lahaayeen because of siyaasadooda ku xirneed iyo xumaantooda qashankooda aan waxaan siri dhalinyaradan si kastana way u soo kari waayeen oo meelo badan galgala way is yiraahdeen haddana waxaan anigu still isleeyahay dhalinyaradan weli gacanta xoog waxaa ku haysta Fahad Yaasiin iyo Farmaajo oo ilaashanaya oo maadaama xukuumadoodii ay laga soo dhisay oo ay dirtay still ilaalinaya waana sida loo baahan yahay wadankuna waa inuu sir lahaada wadan wax kasta albaabadiisa balaqan yihiin wax ka xun male ma salaad maalin baa halkan u fadhiyaa sawir laga soo qaadaya hada waa sirdoonka dhan ee misaal lagu leeyahay marka dawladnimadu ma aha wax kasta in banaanka yaalaan dawladnimadu ma aha in wax kasta la og yahay talaabo kasta la qaaday wadankeenu kaga sii daran tacalwiyo badan buu leeyahay dad waxaa jira naga dhex arka horumarkooda inaan anagu dhulka galno iyo dad naga dhex arka inaan anagu kor u kacno wada magaca la noqono adduunkana ka muuqano horumarkooda naga dhex arka marka muhiim ma aha wadanku in mar walba wixiis banaanka yaal wada kasta calanka Soomaalida ayaa ka lulnay maanta wuxuu u sameeyeen waxa waa jacayl oo Soomaaliya u qabo oo nin abaal loo galay ee abaalkii aan hilmaamin waay ma fahamtay afwarka waa la soconaa canshuurihii waaridkeen ay bixiyeen anagu kuma soo gaar laakiin waaridkeen ay bixiyeen ayaa wax ku soo bartay oo wadankiisana oo ku difaacay hubka waxa loogu gadi jiray lacagteen oo anaga canshuurteen ayaa loogu gadi jiray wixii ayuu xasuustaa xornimada Eritreana Soomaaliya waxa ay ka qaadatay maahan intii siyaad barxataa oo jooga sida la iga sheekeeyay 6 meeyadii ayay wadanka yimaadeen aniga kula hadlaya saaxiibkayga qaaliga ah oo saaxiibada aan ugu jeclaa nin Eritreana waay asalkiisi awowgiis baa Muqdisho yimiday awowgiis oo aabiis dhalay waxaan guri isla deganayn ilaa 5 sano ayaan guri isla deganayn oo wax isla baranayn waa macnaha af Eritrean kala ku maadlo af Soomaaliya ku hadlaa waxaana asiga la mid ah kumayaal kun boqolaal kun inay milyan gaarayaan aba laga yaabaaba milyan inay gaarayaan laga yaabaaba oo sidaas oo kale Soomaaliya ku dhasheen wax lagu soo baray maartahay waa la socotiin baasaboorka Eritreanka waxay qaadan jireen baasaboorka safaarad kasta oo Soomaalidu ay leedahay wuxuu cadeynayaa oo kaliya inuu Eritrean yahay baasaboorka uu qaadan jiray marka abaal weyn baa u galna runtii oo ka weyn 5,000 askari oo ay noo tababaraan maartahay ka weyn 30 sano miya mise waa 40 sano ayay wadankeena joogeen oo ka halgamayeen oo hub iyo wax walba aan siinayn marka runtii afwarka aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa sababtoo ah wuxuu ixtiraamay isxaankii loo galay ayuu xasuustay meel walba calankeenu suray sharaf ayuu noo hayaa uma maleynay inuu Xasan Sheekh oo ixtiraamayo oo maaragtay ninka saa u la hadlayay oo maaragtay Soomaaliya war cusub ka sameey rabay oo maxaan ku raadahay oo ummadii qabiil ku soo kiciyay waxaas waxaan u naqaanaa oo kacsiyan u naqaanaa orto ku soo kacsaday maaragtay oo wax ka og yahay ku dadka ugu xigay ayaa baahanaya oo hortooda xooloodii u dhacaya ma fahamtay marka ani maba qababa in Xasan Sheekh la siiyo xataa hal daqiiqo in la siiyo barkee maba astaahilaba inuu madaxweyne Soomaaliya oo noqdo maba astaahilaba qabiilna meeshan wax la yiraahdo yaalaan hadii qabiil ay tahay dad anaga ugu xigno ma fahamtay anaga dad ugu xigno ma fahamtay anaga dhayna waa nin xun waaye nin oo u qalma Soomaaliyana ma ahan ma fahamtay hadda ninkan wuxuu dad qabiil ah meesha isugu yimiday waxyaalahaas waa wax raqiis ah wax raqiis ah oo dadka in lagu indhasan caadiya la rabo oo looga wareejiyo sheeg maartay hadii runta loo sheego dad macna qabiil dhinacooda la aadaa markii sheekadu ku xumaato oo ay waayaan sheeg maxaan ku raadaay in xaqiiqda looga adkaado oo runta loo sheego ayay waxay ku gambadaan wax qabiil la yiraahdo waxay dhahan qabiila nagu la dagaalamaya dad gooniya la beegsanaya wax ka jirin malaha taalahan Soomaalidu waxay tiraahdaa god ha qodan hadaad qodin ha dheereen ku dhici doontaa kan warqabtid tusaalahan hadda nimankii la dhihi jiray midowga musharaxiinta Muqdisho waan la wada soconaa qofkii jooga iyo qof aan jooginba dib baa hadda ka socota dadkii illeedka ahaa dhalinyaradii aqoon-yahankii ganacsatadii baa la dilayaa
toorey la gelinaya baskoolad madaxa looga dhafanaya taleefon iyo jeebaar lagu dilaya waxaasuna ma ahan dhalinyaro xaafada iska urursatay iyo waa midowgii musharaxiinta nimankii la dhihi jiray waxa iyaga ay sameeyeen oo wixii la dhihi jiray badbaado qaran ciidankii badbaado qaran la dhihi jiray yacni nin kaste oo midowga musharaxiinta kamid ah nimankii jasiiro fadhihi jiray oo kudlada ahaa oo 40 iyo 50 gaaraya nin kaste 20 wiil 10 wiil 30 wiil iyo hayst xeriyooyin baa waxa u joogay niman geel loo qali jiray midowga musharaxiinta la dhihi jiray oo saa lagu biiri jiray doorashada markay dhacday xasan sheekh maxamed la doortay nin kasta oo xilkii uu waayay Soomaa nin kasta waraa waa salaamantiin biyo xagee aan cirka aad guriga hooyadan aada haye suuqa la galay sidii loo maareeyo baa la garan waayay waa dhib hadda ayaga damo jadiid haysata qodobka kale oo gabadhii walaashay hadda hadlaysay iga horeysay sirdoonka yani sirdoonka horta sida Soomaalida u taqaan iyo sida anaga adduunka looga yaqaano waa baari karaysaan profilada iyo wadamada sirdoonka ka hormaray dokumentiyada iyo warbixinada iyo buugaagta laga qoray sirdoonku waxa uu ilaaliyaa danta qaranka uu ilaaliyaa yani sirdoon waxa loo yiri wadamadan adduunka waa virus oo shanaagado virus oo qaar baa wax kale aan ka shaqeynay xogtaada inay bixiyaan hadda tusaale ahaan Turkiga martaqaad la siiyay xas waxyaalaha martaqaadka loo siiyay oo martaqaadka loogu yeeray koow waxa ka ah Masar iyo Israa'iil wada socda iyo Imaaraat ayaa xeradii Turkisom access u helay xogteedii dhageystay dowladda Turkiga sirdoonka Turkiguna xogtii in la dhageystay oo xog laga saaray banaanka loo saaray waa la helay markaas xasan sheekh maxamed martaqaad loo fiiray oo la yiri anaga hadii wadamo aan anti isku nahay oo sirdoonka iyaga iyo sirdoonkooda ay anti isku yihiin sababtoo ay tahay Israa'iil waa virus sirdoonka adduunka Mareykanka oo dabada u dhaqa waa iska ilaaliya oo adduunka sirdoonka wadan sirdoonkiisa haday dhex galaan waa khatar cadiim sida computerka virus uu jeejiyo ama software-diisa ugu ciyaaro ka ugu ciyaarayaan sirdoonku marka wuxuu ilaaliyaa xogta qaran yani in la qariyo qof shacab laga dhigo dad aan la aqoon laga dhigo wadamada loo kala dirsado weeye sirdoonka laakiin sirdoonku ma aha wiilal dhalinyaro oo qori wata oo siyaasigii ka soo horjeeda oo hotel ku cashaynaya ama meel fadhiya ama qof dhalinyaro ah oo fikiraan kaaga soo horjeeda loo diro oo buud la soo dhaco soo qabta ciidamada militariga waxa lagu tiragalay wadanka xuduudihiisa badiisa irkiisa ama ciidan cid ha noqdo ama ciidan badan ha noqdo marka waa raali iga ahaada sirdoonka soo fahansanahay iyo hadda inaga sirdoonkeena sumcad ma baleena sababtoo ay tahay wuxuu noqday meel oo siyaasiyiinta ku dhex dagaalaan sirdoonkuna waxa la rabaa institutionka sirdoonka inuu siyaasadda ka madax bannaan yahay wadanka daladiisa guud iyo qarannimada iyo xogta banaanka ka imaanayso iyo xogta gudaha ilaa xogta banaanka ka imaanayso xogta gudaha ay soo dhexgalaysaa ma ogtahay oo hadii access aan loo loo helin gudihii xog lagama saari karayo adduunkana waad aragtay hadda Soomaaliya waa albaab iska furan cid kaste bad iyo biri iyo cir iyo dhul iyo meel kaste baa laga soo gali karaa oo xogtana waa laga qaadan karaa xalana